السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عويسين وناكسن دمان داودياشا قيمها إيا قدرنت مدنو ملك السؤال نقد داوانا يسان عالم كو إذيل وبرامج كيني حدقاها دو غبرتين تلفزيون قرنك الصوماليات إنو ذكرسو تبيا حرونتا أنو كلنا هاي مقالة لندن برامج كان على مرتيق ونقدان فنانين تكالدوان أيان انت عن برامج كأوغلين فنان كعاو مرتيدا إيقواه أيان وحان جعلان لها إن أن كفا إذي سفرصدان aan tacsi hawada u mariyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed bahda saxaafadda iyo ehelkii qoyskii caruurtii iyo xaasaskii ku geeriyooday Allah u naxariisay rugcadaagii suxufigii weynaa Axmed Xasan Cawke anoo ku hadlayo magaca shaqaalaha TV-ga qaranka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo dhammaan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed iyo madaxdeedaba anoo marka labaad isticmaalaya magacayga iyo kan familkayga ayaan waxaan tacsi u direynaa qoyskii iyo eheladii caruurtii ku geeriyooday marxuum Axmed Xasan Cawke oo aan ognahay inuu ahaa rugcadaa saxaafadda aad loogu yaqaanay taariikhda Soomaaliyeedna aan ognahay inuusan marnaba ka tirmi doonin Allah awood leh hadduu ka raali noqdo ilaahayna waxaan ugu baryaynaa inuu jannadii firdawsa ah geeyo qoyskii eheladana samir iimaan ka siiyo caawa barnaamijkan xidigaha haddaan tacsidii halkaas ugu soo noqdo ayaa waxaa marti igu ah fanaanka caanka ah iyadoo ay fanaaniin aad u fara badan waqooyiga America sida cadcaydii ugu soo iftiimeen fanaan ka mid ah fanaaniintaasi fanaankaas oo lagu magacaabo Yusuf aan iraahday ilmaam hadal kuma jiro Samatar Yusuf Ali oo ay u yaqaanaan dadka fankiisa jecel Samatar yare Samatar ku soo dhaw barnaamijka xidigaha thank you walaalkay aad u mahadsan tahay barnaamijkan maanta ugu soo dhaweysay waxaan halkan ugu tacsiinayaa Axmed Xasan Cawke samir iimaan Allah naga siiyo dadku ka geeriyoodana Ilaahay samir iimaan Allah ka siiyo aamin aad baad u mahadsan tahay Samatar sidaan ka dhawaajiyay waxa kamid tahay fanaaniinta North America sida aadka lagu yaqaano muddo badanna halkaasi bandhig faneedo fanaaniinta halkaas joogto la dhigi jiray bal waxaan jeclaan lahaa maadaama uu yahay barnaamij aan ugu talagalnay in fanaan walba taariikh faneedkiisa aan wax ka ogaano ayaan waxaan jeclahay in aad noo gudmarto taariikhdaada faneed sida ay ku bilaabatay fankaygu ruuxaantii wuxuu ku bilowday dalka Mareykanka gaar ahaan Seattle Washington anigu markii hore fanaaniinta aroosyada waxaa ka heesan ahaan jiray aroos baan ku bilaabay laakiin waxaan bilaabay inaan fiidiyo iyo heeso aniga aan leeyahay aan qaado markii ilaa iyo 2 sano ka hor 2003 aan bilaabay insha Allah 2003 mise 2013 2013 waa qaldan 2 sano ka hor 2003 waa ka badan tahay inta ma runtaa waa 2 sano ka hor ayuu 2 sano ka hor aan bilaabay inaan heeso aniga aan leeyahay fiidiyo la soo baxo inta ka horeysa waxa ay fanaan magaalada uu joogo bandhig faneedada la isugu yimaado ama xafladaha gaarka ah ay Soomaalida leeyihiin ka heesan ahaan jira aad baad u mahadsan tahay ayadoo ay fanku u leeyahay asaas email laga soo bilaabo maadaama aad ka heesi jirtay xafladaha ay Soomaalida ay leeyihiin bal heesihii markaas aad ka qaadi jirtay iyo fanaaniintii aad jeclayd inaad heesahoodii ku luqeyso haddii aad caaw wax ka xusto fanaaniintan weliga jeclaa waxaa kamid ahaa Cumar Nuur Abdulle soo qaadi jiray Allah naxariisto waxaa kamid ah heestii Janan heestii uu qaadi jiray Janantii ku siilahay jana kamidii ku siilahay haday kula joogine hey jirka sidoo ku noqon la heesaas aad u dhageysan jiray Allah naxariisto fanaan aad u cod macaan u ahay marka iyo fanaaniin kale oo badan aan dhageysan jiray way jiraan kuwii hore aad baad umahadsan tahay maadaama uu Cumar Nuur Abdulle ahaa nin fanka Soomaaliyeed aad loogu jeclaa rabbi naxariisi jannada ha siiye aamin heeso badan uu lahaa sideeba marka aad ugu horeysay oo aad soo gashay fanka fanaaniinta qaarkood dadka si isugu aaminaan inay heesooda qaadaan aad bay u adag tahay Cumarna dabcan aniga waxaan dareensanahay inuu yahay fanaaniinta codka dabacsan leh oo dadka markuu heesayaba korkaaga aad ka dareemayso heesihiisa codkiisa adiga sideebaad marka ugu horeysa aad ku dooratay inaad hees maslax aad
intaad la hor istaagto dadweynihii aad ku qanciso in aad heesahaas aadka u weyn oo fanaaniinta caanka ah aad qaado والله waa su'aal fiican waaye Umar Nuur Abdulle badana heesa badan oo asiga qaada sida maartay oo aad u dhageysan jiray marka aniga waxaan kamid ah fanaaniinta meelaha oo dadka dhaadheer ka qaado heesaha meel kore marka markaan codkayga fiiriyay iyo markaan asiga kii fiiriyay waxaan dareemay in xoogaa in codkii matali karo heesiisi aad keeni karto soo dhawaan karo laakiin asiga nin aad u cod macaan waaye lama keeni karo anigu asiga iskama dhigi kari laakiin asa samatar ahaan waan jeclahay fanaan wadadu maray inaan maro macnaha waxaad leedahay wuxuu ahaa cumarkii shalay anna maanta samatarkii maantaan ahay cumar lama naqan karo ilaahay qof walba waa gooniyo ka dhigan laakiin samatar ahaan ninkaaba aad u jeclahay Allah u naxariista heesiis samatarow fanku waxaan garan karnaa in uu fanku aad iyo aad u howl badan yahay fankii markii hore jiray waayadii barisamaadka intuusan waxaa laga yaabaa inaad nin dhalinyaro tahay ama qurbahanba aad ku kortay sida aan iska qiyaasayo da ahaan sideebay kula muuqataa fankaagu maxaa kugu adkaa inta aad fankii bilowday waxyaalihii caqabadihii ka hor imaada fankaaga maxaa kamid ahaa والله horta waxaa kamid ahay fanka hadda jiro horta dadaal aad u badan u baahan yahay macnaha abwaankii heesuu ku dhiibo waa inaad la xamiistii raadisaa waa musicianka raadisaa waa inaad cameramanka raadisaa marka waa howl aad u badan halkii heesaa waxay iska qaadanaysaa intaasoo bilood samaynteedii marka de Soomaaliyana waa markii hore fanaaniintii hore wax walba easy ahayn koox bay ahaayeen dad baa wixii u diyaarin jiro uu imaanaya codkii wixii buu gudbinayaa sidii ku soo baxay marka anaga aad bay noogu adagtaa hadda hees ku sameeyno waa marka waxaad leedahay anaga isxilqaameyno isxilqaan ayaan intaan ku soo gaarnay fankii Soomaaliyeed aan ku wadnaa wallahi bika xilqaam aad u weyn aan ku wadnaa sababtoo yeelay waa qof walba meesha asaas wado fanaanka hadda asaa heesii raadsanayo asaa maartay lahankii wixii dhan loo sameynaya muusigii wixii marka koox mani anaga nin walba gooniga u socdaa waa gararato nin walba asaa wixii sarranayo marka koox tahay team tihiin macnaheedu isku duubana waxaa tihiin hal meel ka soo jeeda oo musiciankii aad haysatiin abwaanadii aad haysatiin laxamiistii aad haysataa markaad imaado wax soo saarkaaga badanayo laakiin hadda markaad kali tahay shakhsi markaad tahay aad buu fara badan yahay hawsha aad buu adag yahay Samatarow sida aad ka dhawaajisay maadaama ay hawsha aad u fara badan tahay abwaanka heesaa ayaad dad leeyahay ayaad qaadi jirtay ayaa maslax ku soo kortay kaas ayaad fankaaga ku bilowday kadib ayaa waxaa go'aansatay in aad heesa adiga aad leedahay aad soo bandhigto ummadda Soomaaliyeedna aad la qaybsato oo aad noqoto fanaan kaligiisa xagiisa ku taagan ama fanaan buuxaba haba sida la raba hala dhaho heesta kugu horeysay abwaankee ku dhiibay heesta ugu horeysay waxaa ii dhiibay abwaan aan saaxiibana warar siyaar la yarkashadana la dhahaa marka waa dhalinyaradii magaalada ila deganeed maalin buu ii yimid marka wuxuu igu yiriniyo hees baan hayaa marka heestaan aan kula jeclaaday inaan qaado marka aniga waa markii ugu horeysay qof hees ii keeno marka warqad bay ku qorneed marka waa fiiriyay marka waxaan dhahay niyo de waa warqad bad ii dhiibto wax ku qoran yahay san hees ugu dhignaa alaan waxaan dhageystaan qaadi jiro moogta fanaan baa dhageysto musigeeda soo qaato aan sidoo u qaadi jiro moogta marka wax cusub ay la naqdeen markaas uu yiri ma laxanka ana sameynaya laxankii waa hagaajinaya adiga waa marka waxaan okay laxanka u soo sameey markay diyaar noqotay ii keen marka uu soo sameeyay marka uu ereydaan hadda waxba kama garanay marka uu soo sameeyay ii yimid oo codkiis ku soo duubay marka waxay u noqotay mucjiso ilaan qof wuxuu soo duubay ma matali karti macnaha isagu iga cod gaabnay aniguna ka cod dheerahay macnaha abwaankii la soo sameeyay marka waxaan kala garan waayay waxaan kala garan waayay in aniga sidiisa oo kale aan u matalo ama in aniga style-kay ku qaado marka rag asxaab la taxanaaniyo heestaan la keenayo maxay la tahay wallahi heesta bella waa dhaal xanku wanaagsan yahay maraawi fiican laakiin codkaaga ku qaad sasmiya okay codkaygan ku qaaday ma sha Allah heestu isku soo baxeen musiciankii aan wacay waa fariisanay marka waxaan ku dhaaniyo heesaan Soomaalida maartay musiga isku wada halo wax different iga dhig marka music iyo bedelay music different oo ka dhigay heestii markay soo baxday wow surprised waxaan dhahay wow adigaaba ma artis aniga ayaa waxaan dhahay ala isgaran weysay heestaada tahay markaad dib u dhigaysatay markaas waxaan dareemay waxa aan leedahay
iyo waxaadan lahayn inay kala fiican yihiin. marka waxaad leedahay abwaanka kugu dhaliyay oo hees ku keenay inaad noqoto mise adaa go'aan qaadatay oo dareentay in heesaha dadka leeyihiin limidkooda ama waqtigii aad ku soo bixi lahayd aad dhaaftay oo aad hadda u baahan tahay heesa aad leedahay? run ahaantii aniga heeso cusub iyo waxaa markaa maba ma ku tali jirin, laakiin abwaanka wuxuu igu dhaliyay asaa ku keenay oo ku dhahay heestan qaad wixii markaas ka bilowday ayaad waxaa bilowday inaad heeso adiga raasito marka inay kala wanaagsan yihiin waxaa leedahay iyo waxaadan lahayn. waad mahadsan tahay annaga oo waqtiga rabno inaan maaragtay barnaamijka isku koobno ayaa waxaan jeclaan bal heesta ugu horeysa oo aad leedahay caawa barnaamijkan xidigaha oo caawa martida igu tahay waan ku dahfuraynaa. waa heestay caawa? heesta ugu horeysa waxaan ku bilaabeynaa Layla. waa gabar magaceed? waa gabar Soomaali magaceeda, waa inta Layla la dhaho. heestaas aad bay ugu heli doonaan. heestan waxaa sameeyey aan ka dhaxgalo Layla qof dumar badanaa fanaaniinta waxay keensadaan ama ay u qaadaan maadaama ay dhalinyaro tahay, ma ka hadlayo kuwa waaweynaa intooda badneed. intii aan barnaamijkan soo waday muddo 4 sano in ka badan aan barnaamijkan soo waday, marka ay keenaan badanaaba waxay u qaadaan ama saaxiib ama qof uu jecel yahay ama xaasas. adiga ma laga yaabaa in maaragtay gabadhan ama heestan adiga ku khusayso ama gabadhaba xaaskaaga ay tahayba? والله horta gabadha Layla xaaskeyga ma ahan, nasiib daro inay naqataan ka sii jeclaan lahay, laakiin way suurtagal weysay. laakiin in future inay Layla xaaskeyga naqataan waa laga yaabaa. macnaha waxaad leedahay maaragtay ilaa hadda weli maaragtay reer ma aan noqon baan u fahmaa ana arrinka. maya reer waan noqday, aabana waan soo noqday, laakiin waa mahadsantahay. taas waa barnaamij waan ka boodaynaa. heesta Layla ayaan jeclaan lahayn in aan wada daawano iyo fanaanka codka macaan leh Samatar Yare. ذهبنا كانوا لها لله تعيل بن الذي وايو ونولو شلا أنت لرمله ليلى وعليه لو فيه نول إيا ذهبنا كانوا لها لله تعيل بن الذي وايو ونولو شلا أنت لرمله ليلى يا سلام يا سلام ليلى دان جعلاي لابتان ku hayay waxba ka dhacay halkaasi Leylo raadiskeeda wali ma ku jirnaa mise
waan kaga harnaa halkaas laylo raadiskeedaan ku jirnay No one knows the secret. aad baad u mahadsan tahay Laylo baad goobkeeda waan geli doonaa anagana qayb baan ka nahay Laylo raadiskeeda aan u soo noqono heestii abwaanka kugu horeeyay waxaan u jeednaa hadda heestan Layla inay tahay qaabka heesahan casriga ama hip hopka waxay dhalinyarada dhahaan ma abwaankaasaan u sameeyay mise heesta ugu talagalaysaan abwaan ahaan mise laxamiistaha oo laxanka sameeyay maadaama heesta ereyada abwaanka uu qoro laxankana uu sameeyo qof goona ama laxankii iyo ereyada hal abwaan baa isku lahaa ereyadaha abwaana lahaay abwaanka abwaana saaxiibana oo sheekaysano haye marka heesta macnaha qofka markuu music markaa dhageysato zaid macnaha idea kugu soo dhacayo maskaxdaadii macnaha dad kale oo heesay markaad aragto heesaan ajnabiga badana macnaha waxaa leedahay heestan waxaa laga koobiyey hees ajnabi camal heesa bidad kale aan dhageysan jiray haye marka bidadka markaan dhageysto ayaan idea marka waxaan dhahay abwaano heesa noocaas oo kale oo dhalinyarada cusub oo bidadka saas oo kale maaragtay af Soomaali ma igu sameyn kartaa macnaha heesa ereyadii ma la sameyn karaa markaas wuxuu yiri macquul way tahay ma fahmina waa la sameyn karaa so marka wuxuu yiri couple days si ana hees ku soo qoraayo dhowr maalin dhowr maalin kadib abwaanka marka la soo hadlay wuxuu yiri ereyadana ku hayaa fiiri markaan fiiriyay aan arkay markaas waxaan ula tagayaan saaxiibanahay Liban Jama Liban Studio waxaan ku dhaanay ereyadana hayaa waxaan rabnaa inaan xoogaa ka dhigno western heesa Martin wuxuu yiri waxa soo leeyahay waa dheh haye marka Liban ana iskaashanay marka musicianka aan keensanay marka saddex qof mar abwaanka heestan sameeyay ereyadii magaciisa bulqaas laxanka iyo muusiga laxanka music Abdulwahab Antarnaaji sameeyay laxankan waxa sameeyay Liban Jama laxanka Liban Jama laftiisa Liban waxaan ku ogeyn camera iyo cameraman hadda ninka wuxuu noqday hadda waxaan u maleynayaa laxamiisu u biisho laxamiistu noqday ninka marka ma heesaan waxaad ugu talagashay dhalinyarada maadaama ay ku sii jeedaan heesahan westernka ah in aad indhahooda iyo maaragtay dhagahooda imaankooda ku soo jeedisay in Soomaalida qaabka ay rabaan sida westernka kale u qaadi karaan inaad tustaan run ahaantii horta sidaa way noqon kartaa laakiin macnaha fanka markaa rabto inaad kusoo biirto waa inaad wax la imaadaa macnaha wixii hore style goona wixii hore haddaad qaab ka duwan qaababkii hore loo soo qaaday haye marka waa inaad bulshadii aad sameysaa waxa ku soo jiidan karto waxoogaa music ahaan erey ahaan macnaha wixii waa wada ammaan laakiin adigoo ammaanayo gabdhihii oo maaragtay wax musicii iyo stylekii wax ka duwan si dadka aad dhigi karto wow samatariyare wax cusub oo community kusoo kordhiyey marka sidaa daraaddeed waxaan jeclaystay inaan waxyaalo duwan qaab ka duwan qaababkii hore loo bandhigo si dhalinyaradana ay u dhageystaan ay dhahaan wow intay videoyada kale oo maaragtay western inaan Soomaaliga ku soo celino ay dareemaan inaan anaga fanaaniinteena aan wax alaal wixii jecel inaan u sameyn karno ama reggae ha noqdo R&B ha noqdo slow jam ha noqdo ayagoo af Soomaali ah maadaama ay dhalinyaro badan inta ku dhalatay intana ku aqriyeysay wadankeena dib u arkin si afkoodii hodanka ah loo tuso in ay leeyihiin any music ay dhageysan karaan waad mahadsan tahay anoon ku dheeraan ayaa waxaan jeclaan lahaa bal heestii ugu horeysay oo abwaankii kugu horeeyay ku dhiibay ma Layla ahayd mise abwaankaas kale waxaa sala deganadeen magaalada Washington Seattle oo adiga aad degantahay abwaankaas heestiisu ii dhiibay waa heestii ugu horeysay aan qaado waxaa la yiraahdaa muhasho erayadeedii haddii aad qaar maaragtay caawa muusig la'aan okay ereyadaas waxaa ka mid ah naftaad muhatoodan hayn hadday meel dheer jirto masaafiya muurahood maqnaashuhu waad ilaa naftaad muhatoodan hayn hadday meel dheer jirto masaafiya muurahood maqnaashuhu waad ilaa ya salaam aad baad u mahadsan tahay samatariyare maadaama aan ognahay in fankaagu uu kusoo bilowday qurbahana ay dhibaatadu aad u fara badan tahay oo aan ka sheekeynay in fanku aad u adag yahay oo abwaankii fanaankii inuu abwaankii raadinayo abwaankii markuu hees sameeyo in fanaankii
helitaankiisa ay dhib ku noqoto muusigii inuu abwaankii laga yaabaaba inuu lacag ku bixiyo ma is dhahdeen imise fanaan ayaad ku joogtaan dalkaasi Mareykanka hadda gaar ahaan magaalada aad joogto adiga Washington Seattle ma isku daydeen inaad aruustaan maadaama abwaan aad sheegtay inay kula degan abwaaniin badan aan filayo inay joogaan maadaama ay Soomaali badan ku nooshahay inaad isku tagtaan oo aad midoodaan oo aad isku meel musician samaystaan dadkii ereyada idin sameyn lahaana ma aragtay aad la xiriirtaan isku meel oo aad fankii halkaas oo aad baahida hadda jirto si aad ugu kaaftoontaan ma isku daydeen idinka fanaan ahaan horta runtii waan isku dayna waxyaalo badan inaan fanka wax ka qabano laakiin run ahaantii aniga hadda yarkii la degan ilka casaqays isku magaalo degannahay aad baan saaxiib u nahay waa isku imaanaa waa wada tashanaa si aan maaragtay waxyaalo ka duwan fanka aan wax ugu qaban lahayn marka waa ku tali jirnaa howlo badan oo rabna inaan fanaaniinteen inaan iskaashano oo maadaama kelida iyo tafaariq u xuntahay may kelida waa Soomaali waxay tiraahdaa gacmo wada jir bay wax ku jiraan waa taas meesha aan ka wado halkaas ku haya bal hees labaad caaw barnaamijka maadaama oo barnaamijkeenu dhowr heesood yahay ayaan jeclaan lahaa inaad dadweynaha usoo bandhigno heesta ugu xigto waxay noqonaysaa degan ay noqonaysaa ayaduna waa waxaan u malaynayaa magac music reggae saaran haye waxaa sameeyay Cumar Haybe degan ma marka ma gabar magaceed ba ayadana degan waa maadaama ay Soomaalida la baxlaata degan gabar magaceeda waa hadda caaw waxaan u malaynayaa gabdhihii baan magacadoodii aan ba soconaysa Layla degan la'aantood abaar aad baad u mahadsan tahay daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow nala daawada heesta degan iyo fanaanka Samatriyare jacayl uu diloodo degan
iyo aad ayuu u mahadsan yahay fanaanka. waxaan u malaynayaa in aad ka wada hesheen heestii degan iyo fanaanka Samatar Yare. Samatar, heestii ugu horeysay waxaan sheegnay in uu sida hip hopka ama heesaha westernka aad u qaadaysay. haddana waxaan u jeednaa heestan qaabka aad u qaadaysay heesaaga ama dadka macnaha muusiga la yiraahdo reggae inaad ku qaadaysay. heesahaaga waxaan u malaynayaa kulli waxaad u malaysaa in aad dhalinyarada da'deeda inta ku koreen ama ku dhasheen aad ugu talagashay heesaha. heesta degan yaa ereyada iyo laxanka iyo muusiga? ereyada waxaa sameeyey Cumar Haybe. Cumar Haybe. haye oo joogo Scandinavia. haye waxaa kaloo music Tuma Abdiwaab Antarnaji. laxankana wuxuu ahay Ted Afro laxankiisa. waxaan malaynayaa 3 qof oo kala duwan ayaa isugu tagtay. Samatar, maadaama aad tahay fanaan qurbo joog ah, ma isku dayda maadaama uu dalkii muddo badan dhibaato iyo dagaalo iyo colaad sokeeye iyo marxalado aad u adag uu soo maray, haddana uu marxaladahaasi dib ugu soo kabanayo, heeso adiga aad u qaado wadanka oo u gaar ah ma jira? heeso wadanka aan loo sameeyey oo aniga aan hay way jiraan, laakiin jaanis umaanan helin inaan heesihii soo deeyo. marka heesihii tirada ka bateen, macnaha heesaha aan hayo abwaanada qof walba wuxuu ku leeyahay inuu heestii aan ku dhiyo maxaa soo deen weeday, abwaankan wuxuu ku leeyahay maxaa soo deen weeday. heesta qarash iyo xoog iyo hawl iyo u baahan tahay. marka heesihii marka wixii say u kala fudud yihiin aan soo kala deeyaa. marka hadda hees cusub aa jirta hadda intaan ku sameeyey, waa aniga heestaas yaraan saaxiibanahay uu ii dhiibay. marka ayagana sidaas oo kale usoo bixi doonaan insha Allah hadduu Ilaahay raali ka noqdo. waa ku tala jiraa heesoo wadaniya iyo kuwa kaloo badan aan soo deeyo. waxaad soo gaartay dalkan Ingiriiska, ma waxaad qorsheynaysaa inaad safarro kale ugu sii baxdo dalka Ingiriiska oo aad bandhig masraxeed iyo aad kusoo bandhigto? run ahaantii waa qorshahaas waan ku jiraa. dhalinyaro badan oo fanaaniin badan oo magaalada igu soo dhaweysay London oo aan dhammaantooda wada salaamayo soo u dhan yihiin abwaaniinta magaalada London. qorshahaas waan ku jiraa, laakiin muhiimadeeda waxay tahay marka hore familka inta deganaayo 12 sano ugu dambeysay inaan marka hore is aragno, waqti la qaato. markaan familka la dhamaano waxaan rabaa inaan barnaamij iyo waxa u soo jeesto, laakiin waan ku tala jiraa insha Allah. macnaheedu waxay tahay ilaa cabaar waad nala joogaysaa? cabaar waan joogaa insha Allah dalkan Ingiriiska. aad baad u mahadsan tahay. maadaama aan waqtigeena aad u kooban yahay, barnaamijka loo sameeyey ayaa waxaan jeclaan lahaa hees saddexaad barnaamijka caawa aad ugu talagashay in aad dadweynaha daawanaya aad u soo bandhigto. heesta kale ugu talagalay hees ammaan waayo oo loo sameeyo Muna Cumar oo joogta Soomaaliya. Muna Cumar Xasan. Muna Cumar Xasan waa saxafiyadda telefishinka qaranka Soomaaliyeed. waa gabar boqorada oo istaahesho more than that. haye marka heestaas waxaan leeyahay Muna ku soo dhawaa. heestaasi Muno bal aan wada daawano. waxaan jeclaan lahaa bal abwaankii alifay iyo sida heestaas ku imaatana inaad dib igu soo noqoto, sababtoo ah waxa igu noqotay wax igu cusub marka ay dhahday Muna ayaa heesta loo sameeyey. maadaama aan arkay heeso badan oo magaca Muno ilaa caawan waxaa iga dhamaan laadahay heesi oo ku saabsan magacyada gabdhaha. bal aan usoo noqono daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo nala daawada heestii Muna iyo fanaanka codka macaan Samatar Yare. عليمه إن عيدو
dhaayahaygu may qaban sidee baan ku dheeda dhaayaha uruni midaan adiga macaan kula dhigo dhaayahaygu may qaban ilaahay ku dhooriye muna dhaywan baad tahay abtii hooyadaabaad dhaqankeedii leedahay dhaqankeedii ilaahay ku dhooriye muna dhaywan baad tahay abtii hooyadaabaad dhaqankeedii leedahay dhaqankeedii يا سلام يا سلام waxaan ka helo ku haystaa Muna Diamond baa tahay dhabtii hooyada dhaqankeeda baa leedahay waxaan maleynayaa in ay heestaasi ay ka heshay Muna Cumar Xasan oo ay ku qanacsantahay sidaan anaga u qanacsanahay daawadayaashana ay ka wada heleen heestaas iyo videoga macaan quruxda badan loo duubay bal waxaad iga warantaa Muna Cumar Xasan heestaasi sida loogu maaragtay abwaanku ugu talagalay abwaanka u niyooday oo hibeeyay inuu siiyo Muna Cumar mise maaragtay adigoo fanaana qaadayo see ku imaatay heestaasi heestu waxay ku imaaday abwaan Cabdirasaaq Axmed Garyaqaan ila soo xariir wuxuu dhaaniyahow qof aad igu qaali ah oo Muna Cumar Xasan oo telefishin ka shaqeyso ayaa waxaan rabaa heestan la jeclaaday in adiga samatrahan ay igu soo qaadid abwaankii heesta Muna la jeclaaday laakiin wuxuu ka sii jeclaaday inaan aniga ugu luuqadeeyo Muna marka sidii ba heestu ku imaaday erayadii waxaan u diray Xuseen Shire fanaankeena Xuseen Shire aad u maadsan yahay waa boqor dhalay waa ninkaas asaga la xaq soo saaray asaga la xaq soo saaray markaas uu igu soo yara celi wuxuu yiri samatra heesta waa tan la xaq soo saaray laakiin heesta waxaan rabaa marka heesta ka soo shaqeysid inay igu soo yara celisid aan arko kabacda sii deest heesta intaan soo deynay asiga u diray uu chicken garay wuxuu yiri absolutely perfect waa heesta waa fasaxantooda sidii marka video ku sameeyay aan Muna heesta ugu deynay waxaan u maleynayaa in aad ugu qanacday wixii markaas ka dambeeyay
Muna aad ugu faraxsan. waad su maqasheen soo maha Muna? aad iyo aad. aad baan Soo u salaameynaa wacdiyo Muna imaad Cumar celisay. Xasan Adigana waa abwaankana salaam, aad u mahadsantahay. abwaankana aad buu u mahadsan yahay maadaama ay tahay gabar muddo badan saxaafadda Soomaaliyeed kusoo dhex jirtay aadna ugu soo shaqeysay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed maalmo aad u adag oo aan ognahay inay ahayd magaalada Muqdisho in lagu shaqeeyo halis balse ay u soo dhabar adeegtay hees iyo lababa way mudan tahay Way mudan tahay, absolutely. aad baad u mahadsan tahay Samatriyare maadaama aan barnaamijkeeni gabagabadiisii soo gaarnay waxaan jeclaan lahaa waxaad tahay fanaan da'yar qurbaha ku bilaabay fankiisii maxaad jeceshahay intee uu fankaaga higsanayaa maxaad rabtaa mustaqbalka inuu heerkee fankaaga u gaaro والله horta nafta meel ay jirto horta ilaaha og koodhe gartay marka waana jecelnahay inaan fanka waxyaalo badan ku zaa'idino inaan maaragtay dhalinyarada badan heeso oo western oo Soomaali lagu heesayo music ka duwan muusigii hore inaan sameyno insha Allah waa ku tala jirnaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo marka program badan aan soo wadnaa hadda Europe aan soo gaaray inaan fanskay waqti la qaato familkay waqti la qaato asxaabteeda waqti la qaato muddo ugu dambeysay ilaa waxaan rabaa Scandinavia inaan aado ilaa Africa insha Allah hadduu Ilaahay raali ka noqdo marka insha Allah waxyaalo badan aan ku guda jirnaa ilaa duumay shaqada way socotaa shaqada iyo hawsha hadda bilaabatay hawsha bilaabatay ugu dambeyntii maadaama caawa barnaamijkan xidigaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed badanaaba soo bandhigaan oo laga fiirsado habeen walba Jimcaha Sabti soo galeyso aad marti u tahay yaad jeclaan lahayd adoo ka faa'iideysanayso fursadan qaaliga ah in aad halkan ka salaanto ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan fanskaagana maxaa jeclaan lahayd inaad halkan ugu tabiso aad u mahadsan tahay walaalkay halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan horta muslimiinta meel walba adduunka ka joogaan waxaan kaloo salaamaa caruurteeda iyo hooyadooda waxaan kaloo salaamayaa dhammaan fanaaniinta reer London aad ay u mahadsan yihiin soo dhaweyntoodii fanaaniinteeda North America dhammaantood waa salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa nin aad qaali ugu ah Axmed Ugaas VIP studio aad baan u salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa adiga iyo reerkaaga dhammaan waa idin salaamayaa aad baan kaaga qaadnaa marka iyo familkeyga meel walba adduunka ka joogaan waa salaamantihiin iyo dhammaan fanskeyga I love you guys so much insha Allah waan is arki doonaa hadduu Ilaahay baraal ka noqdo marka barnaamijkaagana aad baan uga helay aad u mahadsantahay waa mahadsantahay aad baad u mahadsantahay heesta ugu dambeysa caawa barnaamijka aad jeclaan lahayd in aad u soo bandhigtay daawadayaasha heestan hees cusub waaye oo aan ku sameeyay London halkan abwaanka intuu joogaa macnaha waxaad leedahay waa caawa waa habeenkii ugu horeeyay heestani la sii daayo yarka Alhamista intuu degan yahay abwaanka intuu degan yahay magaciidiisu waa idin sheegi doonaa haye abwaanka waxaa la yiraahdaa Najiib Deeriye haye laxankana waxaa saaray Abdi Fataax Agadahab haye asigana reer London ah muusigana waxaa tumay Mustafa Karama reer Karama aadama ma sha Allah wareer aad u wanaagsan dhamaantoodii heestan waxaan ugu talagalay especially barnaamijkaagi maadaama aan marti ku ahay aad baad u mahadsantahay marka waxaan dhahay wixii hore waxa ka qurux badan wax cusub inaad ula tagto wax cusub oo fresh waa mahadsantahay ilaa wixii cusub caalamka jecel haye marka reer London nasiib u yeesheen hees cusub oo magaaladooda ku sameynay caawa halkan ka soo baxdo haye barnaamijkana gabagabo iyo gunaad aan uga dhigno waxaan iraadaba waxaan leeyahay ku soo dhawaada heesta cusub waxaan leeyahay magaceeda gob dumar aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay taasi marqaati ayaan ka wadanahay dumarka Soomaaliyeed hawlkarka ay yihiin iyo doorka ay ka dheelaan mar walba korinta caruurta horumarinta dalka intaba lama hees iyo lababa kuma soo koobi karno dumarkeena Soomaaliyeed amaantooda aad baan kaaga mahad celinayaa waxaan u maleynayaa ilaahayna ka baryayna inuusan noqon barnaamijkii ugu dambeeyay aan ku wada kulano waxaan rajeynayaa in barnaamijyo kale inaan sidaan oo kale u wada kulano ayada hadday noqon lahayd dalkii hadday noqon lahayd meesha aad ku nooshahay oo boqosho kusoo gaaray iyo hadday noqon lahayd inaad dib ugu soo noqoto dalkan Ingiriiska aad baan kugu mahad celinayaa aad u mahadsantahay walaalkay thank you so much aad baad u mahadsantahay daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow waxaan ku soo gabagabeynaynaa heestii gobaad iyo fanaanka Samatriyare barnaamijkan waxaa idin daadinaya anigoo Cabdullaahi Xasan Maxamed Wiish xagga farsamada waxaa qaabeynayay saaxiibka Yuusuf Garbey
inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan idinkaga teginayaa heestii gobaad iyo fanaanka Samatar Yare. Kali gatada igu qabo